halkan kusoo dhaweynayna. waxaa hortiina fadhiya ku tilmaami karo inuu yahay abwaan Soomaaliyeed runtiina aad wax badan ka faa'iidi doontaan wada faa'iidi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Cismaan wuxuu ka mid ahaa bahdii saxaafadda ee berisamaadkii Soomaaliya wuxuu lahaan jiray barnaamij la yiraahdo sheeko gaaban sidaas maaha barnaamijka ciyaarana uu sii deyn jiray waa qoraaga buugga afdhaab iyo sidoo kale buugga hodantinimada afkeena marka in badan ayaan ka faa'iidi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. dhalinyaro badan ayaa aad u daneynaya in ay wax qoraan doonayana in ay ka mid noqdaan qalinleyda Soomaaliyeed. haddaba buuggan oo Cismaan uu in badan ka warrami doono waxa uu aad iyo aad si xeel dheer uga warrami doonaa soo afka Soomaaliga xarfihiisa موضوع aad u ballaaran oo runtii aan waqtiga aan haysan aan lagu soo koobi karin ayaan rabnaa in yar inaan kaga faa'iideysano. Cismaan ku soo dhawow oo marka hore afdhaab muxuu ka hadlayaa. Assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim. marka intaan taawgal maxamed waxaan jeclaan lahaa magaalada Muqdisho iyo xusuustaydii inaan ku bilaabo 9kii bishii December 14 baan ka duulay garoonka Alcadde ee Muqdisho intii aan qabtu dhicin shalay baa ay xigtay oo aan ku soo noqday waqtiga inta leeg waan ka maqnaa welina magaalada quruxdeeda iyo sida ay u habaysan tahay kalgaalka Soomaalida ee Muqdisho aan ugu yimid iyo sida loo dhisay amnigeeda waxa warbaahintu ka sheegtay inay jirin xaqiiqadu ay ka duwan tahay oo ay Muqdisho raaxaysan oo labdoon oo dadku jecel yahay Soomaalida doorasho ay tahay ayaan jeclaan lahaa inaan marka labaad sidaa sheegtay reer Muqdisho raggan oo shaqo jiray Axmed Xasan Cawke iyo Maxamed Axmed Xaaji Cagma Dhigay iyo Isbiraal Axmed Cumar iyo Cabdiruus Maxamed Saaq iyo Maxamed Ali Xirsi Teera iyo Maxamed Faarax Xalan Daashar iyo Cabdullaahi Cali Afraxayro reer Muqdisho hadda la sheegay inuu xanuunsanaya raba inaan booqdo iyo raggaasaan xusuusanahay berisamaadkii Muqdisho marka noo soo noqono buuggan afdhaab wuxuu ka hadlayaa daraasado fara badan oo 38 daraasadood gaaraya oo aan hore loogu qorin afka Soomaaliga 23 sanadood ayaan ururinayay akademiyada dhaqanka Cakaar ee Laascaanood ayaa qortay waxaana hirgelisay akademiyada dhaqanka oday ka sheekeeya magaalada Hargeysa waxa weeye ka soo qaadi karaa ereyga xarfaha wax kooba oo kala hadaynu ku bilowno berigoona 7 xaraf ee laba Soomaalidu waxay u taqaanay weed yar oo tiraahda manal garaadba anigu waxaan ka sameeyay ilaa 30 magaaladan baro ma gaala daana baara dagaal ma rabno gaalada ma rabno gabar dulman rag maal badan god aalo ma beeran boore manala deg baar gaal ma aadna meel loo baahan yahay marka manal garaadba marka waxaas oo dhan hayno أنا كايا ترى كوا هل شقل يهل بلون السكوتري أف سومالي كمويه هل شقل يهل بلون السكوتري أف مع السمية مترو إنجليز صورنا على يعني أوكس ودبيع عربنا عي أو إيطاليا لي أو مامبوا قي أو إسرائيل سومالي كذا يفرس سكوتر توقف إيه يلا تسكوتر توائل أو يلا واقول يجا تسكوتر أك أس waxaa jira waxyaabo weel aan ku soo koobay xarfeen oo dhan oo la mid noqonaysa maamaadii oran jirtay hadal waa markoo dhinaci loo sidoo dhaqaaqa waxa weeye markhaati wuxuu ku helay af Soomaaliga la sheegaya markhaati wuxuu ku helay qofba dhinaciisa jidee oo sheeg hal shaqal iyo hal shibana kama dhimana weedhaasina way dhammaystiran tahay the quick plan focus bay la mid tahay over the lesson waxaa jira lamaanaha isku qobtalan xaraf baa sheegaysaa eray ku dhamaaday mid kale ka bilaabmaya hog baa tiri gaab ku dhamaaday god baa ka bilaabmaya guul baa tiri laabay ku dhamaatay lib baa ka bilaabmaysa habaas baa tiri saabay ku dhamaatay siiga ka bilaabmaysa afo baa tiri oo bay ku dhamaatay oori baa ka bilaabmaysa awr baa tiri raab ku dhamaaday rati baa raadi ka bilaabmaysa af Soomaaliga mooyee af laga heli karaa ma jiro dunida oo dhan
waxaa jira qumanaanta dhacda iyo qaloocsanaanta raada inkastoo qolada reer koonfureedka iyo bariga oo weliba hooyadaydii afkay bartan ay mudug ahayd yaan la xanaaqin hana la baado waa cilmiye dhacda waqooyiga ayaa saxsan haddii aad tirahdid gadhkaa keliyuu ahaanaya laakiin hadday raad noqoto macnayaal badan bay yeelaysaa ma garkii la naqayeyba ma garkii wadnaha ma garkii jaadahaba ma garkii xadhigahaba haddaad tirahdid badh oo dhacda waqooyigu ay saxsan tahay waa nus laakiin haddaad bar tirahdid waa dhibic waa bartaa waa qofka waxaa tiijganayo qofka waxaa bar macnayaal badan bay yeelanaysaa haddaad tirahdid bari waa barideedii dhacda waqooyigu laakiin raada koonfurta iyo barigu waa bari qofka waxaa ka bari jaada qoraxda ka soo baxdo haddaad tirahdid xaad waa waxa xaaq oo nadiif weeye afka dhacda laakiin raadu xaar bayba noqonaysaa marka aad iyo aad ayay u saxsan tahay waxaa la yidhaha qumanaanta dhacda iyo qaloocsanaanta raada taana waxaan jeclahay inay xiisa yeelato oo laga wada hadlo waxaa jira far soomaaligoo lagu ciyaaray anigu hees baan ka tiriyey oo ingiriisna lama jajabiyo iyo carabida soomaaligana way ku dheeldheelaan marka waxaan barteenna ka daaya dheeldheelko dhammaystira shaqalka kii dheero xarfaha laba dhaca ha dhaawicino hamsaha dhaabada ha dhayalsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiirta kale hoy ku dhiirada ciddii dhaadaa dhadhaminaysa qofkii u fiirsada ma ciddii dhaadaa dhadhaminayso dhaqsada keenu wuu u dhaadhici murti baa lagu dhuday dhitiya farale suugaanta dhankeeda dheegsada dhabtaad fahmaysaan dhammayskaa sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa oo sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaa dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiiltankan hooy ku dhiiradaye waxaa jirtay suugaanta leedo aan soo saaray dhabarsoorka abwaankii weynaa ee soomaaliyeed ismaaciil xirsi ciise ilaahay u naxariisto ismaaciil farxaan aad wada garanaysaan howbay afrika ay hurudooy lahaa howlaha arrada haddii lagugu aamino ummadda shaqeeya adeegaan laga dhigo arday baan ahay oo u bixi waddankaan ahay ayaa soo saaray gabay sida carabiga oo soomaaliya oo xarafka ugu dambeeya laga tixraacayo wuxuu leeyahay suugaanta taariikhda dunidaba teeda sixi waa dhif fac bay ku wada dhammaanaysaa gumaysi baa ku tuntay oo raadu dhigay waa gef ninkii rumaysanayo adiya maankaa shuf haadkaa reerata hilibda yacni waa daf xiinka buur qariya saacdayr waa tif waxaan u bixiyey markaa dhabarsoor xagga dambaa laga tilaacaya way hirgashay dhabarsoorka suugaantu waa gar raabay ku socotaa horaadaduba dhaxay hanteeyan sur imsa xagga hore laga waday xagga dambana ha laga bilaabo ismaaciil hanaanku ratibayna waa hor waana tiigsi aan loo samaynaya tar naxwuuba tugtaasuu sadeeyaa sir masabataamiya waxay waa turqeen waa dhir daldalaadda ay soo tuusheen looqir sancadaba badhaadhkeedu waa bir marka dhabarsoorkaas uu hirgalo waatan heesta barbar iyo laga sameeyey cali xalaanaa berigii iga qabtayo fiyoodana waa laga sidaayo waxaan dhabarsoorka suugaanta haddii aanu eegno waxyaabaha soomaaliga aanu kusoo kordhinay hadda soo qorray waxaa ka mid ah tubta wadaraynta oo kale ingiriistu s bay jamac ku noqotaa carabiduna wow iyo nuun almucallim almucallimuun ama waa jamcu taksiiro awalad awlaad xarafkii walad baa burburaya soomaaligu wuxuu ku noqdaa 18 hab mar oo baa lagu darayaa naag oo ku dar naago beer oo ku dar lug oo ku dar mar oodaasaa ka dhigta mar oo ku dhammaadana waxaa ka dhigaysa ooyin baa lagu darayaa dhalo dhalooyin hooyo hooyooyin jago jagooyin saas oo kale marna waxaa ka dhigaysa shibanaha ugu dambeeya oo aan laga horraysiiye wiil aan ka horraysiiyo laadii ugu dambaysay ku dar muxuu noqday wiilal mas aan ka horraysiiyo saadii ugu dambaysay ku dar masas ceel ceelal saas oo kale miisas mar waxaa ka dhigaysaa naada ayaa waxay noqonaysaa mo marna waxay noqonaysaa man halkii naada nin man bay noqonaysaa niman saasoo kale jin jiman xin ximan qaalin waxaan leeyahay ban banan qol qolal markay kale tahayna man noqonaysana waxaa weeye doon doomo qaalin qaalmo marka waa qaacidooyin dhammaantood waxaad ka helaysaan buugga afdhaab waxaa jira oo kale qodobka xarfaha 7 qodob baa raaca soomaaliga
waxaan ku soo koobay anigu takaag hadasha waa taa ga da ha sha marka kaada iyo gaada iyo haadu waxay raacaan labka taada iyo daada iyo shaaduna waxay raacaan dhadiga haddaad tiraahdo ceelka waa lab miiska cirka haddaad tiraahdo gacanta lugta waa dhadig toddobadaa qodob markaa xarfaheenna waxaana ku dhammaantaa ja ka iyo kha iyo ma inta kale oo dhan way ku dhammaadaan waxaa jira rakaadda af soomaaliga oo kale toddobadaa qodob iyo siday xarfaha u kala raacaanna waa laga helayaa rakaadda af soomaaliga waxa weeye takriir afafka kale badankoodu male waxaa tidhi degdeg waa jaacadka ugu yar laba shibane oo hal shaqal gaaban ku dhex jiro degdeg malmal sacsac filfil nacnac wedwed xidhxidh saasoo kale haddana waxaad arkaysaa iyadoo shaqal dheera mahmah teelteel shuuxshuux daadaad qaadqaad haddana waxaad arkaysaa iyadoo xagga hore ka gaaban xagga dambe ka dheer ma gargaar kashkaash hadda waa gaadiyo raadiyo gaadiyo shaadiyo kashkaash basbaas walwaal salsaal saasoo kale mar waxaad arkaysaa iyadoo dhexda ka furan jagi hagi kebi saasoo kale gebogebo mar waxaad arkaysaa iyadoo jaranjaro barambaro qoronqoro saxansaxo marka ugu dambaysa waxay gaaraysaa musuq maasuq dhuuq dhaaluq waa 29 hab weeye marka waxa weeye af soomaaligu waa afka ugu hodansan adduunka waddanka ugu khayraadka badan baad degantihiin cadceeddu meesha ay ka furan tahay waa caluulo dusheeda sabanka meesha isugu tago dayax gacmeed kale adduunka ka bixi kara ma jiro mid halkaa yimaada mooye ciidda afarta nooc ee ciidaha oo dhan soomaali baa leh mulkigii nebi sulaymaan baa yaalla nebi aadan ceergaabu ku noolaa ilaa boosaaso inta udhaxaysa dirtaad maqlaysaa waa innaga dir iyo daarood ma maqasheen daarood waa injineer daar buu dhisay laakiin dir waa dirkii nebi aadan oo wallahaya cilmiga baana madaxweynihii maraykanka iga markhaatiya george w bush waxau yidhi markuu baydhabo yimid 1949kii waan ku faraxsanaa inaad maanto hooyadii bini aadanka awal masar baa sheegan jirtay cadowgeennuna maaha etoobiya yuhuudna maaha waa masar nimanka taariikhdeena qariya faraahin baa xukumi jirtay fircoon soomaali buu ahaa waxaa qoray gees waa fir iyo coon kii gaabnaa firkiisii weeye inagaa gumaysan jiray masaarida saasay taariikhdeena u qariyaan waxaa 120 dowladood waxay maanta muqdisho u joogaan oo soomaalida isugu haystaana waa nimcada meesha taalla iyo cadceedeeda hawadeeda ciiddeeda dhulkeeda quruxdeeda dadku waa 3 nooc waa kokoside dadka qorqoran sida soomaalida iyo caddaanka iyo carabta mongolide indhayarta inagoride jareerta 3diiba tuulo kasta xaafadda islaamiga soomaalida ka waarkaysaa mid waa in hebelo sidiiya dadkoo dhan innagaa dhalay xaraf kasta soomaalida way kartaa carabtu dhaan ma karto canfartu shaa ma karto kuwa caddaanka biirka caddaa iyo xaa iyo caa ma karaan soomaaligu xaraf kasta wuu karaa jinsi kastana wuu leeyahay waa hoggii bini aadanka weye madaxa sare taaga ku farxa inaad soomaali tihiin khayraadka ugu badan ilaahayda siiyey nimcadaa haystaan aan cidina haysan cadaalad keliya loo baahan yahay qabyaaladaynu ku bedelano cadaalad muqdishona waa caasimadii dalka anigu laascaanood baan adduunka ugu jeclahay meeshaan ku dhashay haddaan dhintana adaygu haaso laakiin meesha labaadaan ugu jeclay waa xamar wallahi ma daawan jirin burburkii tiifiyada waa ka jeesan jiray sidaan inaan ugu imaadana aad baan ugu faraxsanahay wixii su'aalaha weydiinaya waxaad su'aalo u baahataan laakiinse inaad tihiin hoygii adduunka inagaa soo saarana ciiddaynu ka samaynaa baabuurta markaasaynu u bixinaynaa dalmar dalmaax laakiruusirka dalmar baynu ku bedelaynaa madaxaasana u qaada qashinkeenna ayaa inaga badan baddeenna xoolaheenna beeraheenna adeerkay baa soo galay xuseen caashi guddigeenna nimcadeenna quruxdeenna sharafteenna jinsi kastoo soomaaliya ka guursado wuu dhacaa hadduu caddaan guursado caddaan buu dhalaya bini aadanka idinkaa dhalaye baana taariikhdiina ardayay oo jaamacaduhu ha baareen cilmi baarista la sameeyo afkaa laga helayaa wax walba afka ayay ku qarsoon tahay taariikhdu waxaan u dhiibayaa imikana maxamed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay aan isdhegaysano cafwan aan isdhegaysano weli barnaamijka nooma dhammaanin waqti badan baa inoo haray
أسلقسنو عفوا وقت كينو هاري أنك فايدي سنو اسمان مر لبد بانكو كسو لابانا يا سيدا عاد فرتين سومالي waxaa la qoray oo la hirgeliyay 1977 buugaagan afdhaab waxa ku jira ciwaan ah afkani far horu lahaa marka ma waxaad u jeedaa far hore oo Soomaali ay leedahay baa jirtay oo midan hadda aan qorno laatiinka ah aan ahayn miyaad ka wadaa bal arintaas xoogaa noo faahfaahay ayo afkaad ka helaysaa walaalo wixii qoraa waa jira godqallo wadan oo Soomaaliya ku yaala dhulkeeda oo dhan xudun gobolka Sool godka xaradka leeyahay waa tusma dadkan cadaanka waa inaga badiya intay soo wurtaan oo taamaadooda geeyaan oo furaan bay iyagu sheegtaan inaguna waxayna xabashi baa joogu tirtay waa farti xabashiga war ma hay inaga adduunka dhalee dadkeena lahaa ina baa qoray reer asxaabada Mareykan jooga sumadaha geela Soomaalidu ku dhigato dhami waa far eeg waxaad geel qoraal qalin war maxaa helay xaashi qalin bog qori akhri yeeri qaybsan qalin waxay oo dhan wadaad arday waxaasoo dhan haddaanay jirin erayada jira waxay muujinayaan in waxaas jireen oo dadkani faroleel ahaa fartiba hadda aynu baadhna laasgeel baa ka mid ah oo dacar buruq dusheeda waxaa ka mid ah cadalo iyo warshiikh godqaladaasi ku jiraan kuwa jaamacadaha ee caawiyaha ay hor fadhiya iyo ardayda jaamacadda kala duwan ee Soomaalida maanta generationka electronicska la haysta ayaa baadhi doona oo soo daafuri doona waxaana laga helayaa sumadaheenna iyo farshaxankeenna iyo suugaanteenna dirkaba mar labaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii ismaan lagama dhergi karo waqti aad u fara badan ayuu u baahnaan lahaa oo aynu uga faa'iideysano laakiin weli waxaan haysanaa time aynu wax badan aan kaga faa'iidi karno haddii ilaa yiraahdo ismaan mar labaad waxaan ku weydiin lahaa waxa ku jira buugaaga calanada adigoo uga hadlaya marka bal calanada iyo baaqa xarfaha iyadana xoogaa noo yara iftiimi bismillaah aad baa maasahay baaqa xarfu waxa weeye waxayaan liima alfa baaba waa la soo kala naboo leeyahay de bal haddii afka la qorana waa in dhinac kasta laga qabiyo tiraa weli shaqada culus baa inaga dhiman marka baada waxaan u bixiyay biito waa ciyaar Soomaalidu ciyaar jirtay biito neeshay deelan oo daba ogaan bambanaanis balakay taaqdo balansoo eega biito laabo si aanay u lumin magacaas taada waxaan u bixiyay taleex waa xaruntii halganka jihaadka Soomaaliyeed ee Islaamiga ah taada waxaan u bixiyay jaalle ama waa saaxiib haada xuuko oo hilibka geela laga shiro qaada khuuro daada darmaan waa faraska amuray faras hana qaaday raada rooxo waa geedaynu leenahay saada samuulad waa xilliga guga shaada shacni waa dhalaalka iyo quruxda dhaada dhidar waa ugaadhe dustuugteedii caada cadceed gaada garoob faada fidhin qaada qalanto kaada karuur laada laako ama mataano maada macooyo naada nadi waada weger haada hilaad yaada yabadh aada adhi eeda edeg iida ishin ooda onkod ooda ugbaad haddaad muqdisho inaad waxaanaysaa macooyo ugbaad qalanto darmaan ishin shacni onkod waa muqdisho markaa waa baaqa xarfaha warbaahinta isticmaasha maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cadiis Soltelko ayaa bandhigii kan ka horreeyay Hargeysa ku qabanay wuxuu ballan qaaday inuu taamaal geliyo oo xaflad loo qabto oo aqoonyahanada Soomaalidu isugu yimaadaan iyo qoraalyahanada iyo abwaanadu oo Soomaalidu dhan markaa lagu hirgeliyo taana waa sugnaa reer Muqdisho inay ragga uga qayb geli lahayd diyaariyaan iyo dadka Soomaaliyeed gobolada isaga yimidba oo xafladaas uu noo diyaarsan tahay haddii qof keligii meel ka dadaalo asaan guddi la aqoonsan yahay jirin oo la soo iman ma hirgelayso يعني بحيث من نت بوت كسبة من ده بوساسو من ده هرجيس من ده حمر من ده لاسعانات هذا اللي شو كين معنا يا الميسو مركاني كمان يركب يرد يا عبد الرحمن صدقه وقلت عين هذه كفاية يسو صورت يا رجال كذا بقولها إذا كان جرو ما نقولش حاجة على نذر وانا قشقنا وعلى معنا سمعنا يا يجا on أو دوشة up أو كرة off in أو كذا
kuwaasoo kale leeyihin laakiin innagu xagga dambe mid ka furan baa jira oo waxa weeye hoo yaa gee sii saasoo kale iyo xagga hore mid ka furan iyo mid shaqal gaabana iyo mid shaqal dheera dhammaanna waxaa lagaga boganayaa buugga afdhab cusmaan mar saddexaad aad iyo aad u mahadsan tahay runtii halkan dadka isugu yimid waxay isugu jiraan dad wax qoray kuwa ku haminaya inay wax qoraan kuwa hadda gacanta wax ku haya inay maaragtay qoraalka rabaa inay soo saaraan waxaan isleeyahay dhammaanteen waxaan u baahannahay buuggan iyo cilmiga ku duugan iyo kuwa kale ee cusmaan qoray inaynu ka faa'iidaysanno si aynu afkeenna hodanka ah aynu dee macnana ugu yeelno isagiina aynu uga faa'iidaysanno mar labaad ayaan cismaan ku celinayaa ma aha waa cismaan waa bad aan laga dhammaan karin marka mar kalean ku celinayaa haye buuggan waxyaaba badan baa ku jira waxaa la yidhahdaa hidda iyo dhaqan baa nolosha ku saabsan tahay hidduhu waa xagga dhiigga awrkaas hiddihii ila hebel weeye hidda sooc waa loo guursan jiray gabdhaha hiddaha dhaqankuna waa afka iyo nolosha iyo hubka iyo cuntada iyo dharka iyo ciyaaraha iyo diinta marka waxa weeye hiddihii dhaqankii way ka buuxaan dhirtii baa ku taalla mucjisada dhirta magacyada caqliga magacyada hadalka ilaha biyaha jaadadka roobka jilibada soomaalida iyo haybaheeda darajada haybta xubnaha jidhka qofka bini aadam wuxuu ilahay ugaadha iyadoo lab iyo dhadigba leh kii ugaadha iyo dugaagaba labkoodii iyo dhadiggoodii ay soomaalidu magacyo u bixisay oo wax walba soo koobtay marka dhirtoo kale kuwa dawada leh maanta waad ogtiino dunidu heer balbay usoo noqoto shiina hogaaminaya dhirta soomaaliyeed baa la guraayo la dhoofiyaa iyo ciideenna waad ogtiin xitaa buurii la rartay oo dawooyinka adduunka oo dhan laga sameeyaa khayraadka afrika yaallounbaa warshaduhu sameeyaan sidii dagaalkii hooda caddaanka ayaa dib laynoogu soo celiyaa aynu suuq u nahay marka dhirta mucjisooyinkeeda waxaa ka mid ah waraabala hadalka caleen buu ku keenayaa dhulwaagu dhulwaagi baad mamaqaysaa af garanaysaaba odayaanu isku reenahay baa buu keenay oo la hadlayo markii dambe markay baryadii iga badiyeen buu yidhi hataa baarida way u dooni jireen awrtaadii baa luntay cayna baanu kusoo aragnayo dee laxdaa qaata marba reerkaan kala dhuntaa buu yidhi masaata uga tuuraa xerada waxaa jira markaa waraabala hadalka xitaa teknolojiga adduunka xayawaankaa dhaama ciiddeedu waxay leedahay quduquutada yaa yaqaana soongurta labadaasiba waxay soo qaadaysiba waxaa ka galay godkoodii baa laga xidhay caleen bay soo qaaday waa qarhaya waa burburinaya geedkaasi waa mucjisada dhirta xabag waxaa ka mid ah mucjisada dhirta waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa nin dagaalkii sabankii ka qayb galay baa igu yidhi geed baan ka daawanaya askartoo loobaa soo martay mise caloosheedii baan arkaa waa khashaafad geedka markaan ku eegana calooshaan arkaa markaan caadi u arkana waa loodii oo caadiya marka dhirta xabagtale nin aadan weli maxamed saala eedo oo reerdaas caalooda ayaa way qariyaan soomaalidu dhirta aan qarin oon buuggana kaga horay ilaa 40 geed iyo cudurrada lagu daweeyo marka dhirteennu waa 730 kun oo jaad xabagta ayaa adduunka ka qaalisan batroolka xabagna maya carabi arabian gambaleeda waa cadaadda soomaalida way sii dilaalaan midab oo dhan xabagtaa laga sameeyaa wallaahi batroolka xabagtaa ka qaalisan xabagtuna afrika u baana iyo meeshii dhir leh xabagta soomaalida ugu qaalisan malmalka nucleerka waxaa lagu daraa maydigeena laga qaado xeebaha sanaag iyo gobolka bari ma ogtintaa ciidda laga sameeya waa uranium dhuusamareeb bay ku taallaa iyo gobolka galguduud technologigiina war turkiya indonesia baynu soo kiraysanayaa iraaniyadoo xamar disanayna inoo samaynaya markaasaynu baawarka adduunka noqonaynaa oo inagu caddaanka hadda wayna dulmiyaan inagu aynu u mixinaynayo qur-aanka gaadhsiinayna iyo diinta islaamka oo aynu muslimiinna odhanaynaa maraykanu naxas baa tahay haddaad teknolojiyada ku horumartay annana qalbigaanu kaa dawaynaya cadaabta ka joog oo noo shaqee gabdhaheenna way gabdhaha carabta iyo maraykanku ay cusburka iyo cilaanka u mariyaan maalin dhow wayna soo socotaa haddii ilaahay raalli ka noqdo cismaan wuxuu ka mid ahaa sidaan hore u sheegnay wariyaashii hore ee soomaaliyeed ee berisamaadkii reedi muqdisho wariyaasha ka ahaa iyo tv-gaba wuxuu lahaa barnaamij la oran jiray sheeko gaaban cismaanoo xusuustaada bal dib u celi
sheeko gaaban wax ma ka xasuusataa oo hal sheeka ma uga sheekayn kartaa dhegaystayaashiina barnaamijkaas horta axmed faarax cali idaajaaba barnaamijka fanka iyo suugaanta sheegi jiray anna sheeko gaaban codkana waanu isaga egnahay marka sheekooyin badan bay ahaayeenoo toddobaadkiiba mid bay ahayd maxamed xasan cali weji oo imika hargeysa degan oo madaxa radio muqdisho noqday baa sheegi jiray markaasay bannaanaatay 85 aniga laga dhiibay sheekooyinka markaa toddobaad kasta sheeko cusub baan keeni jiray sheekadaan xusuusto aan ka mid waxaa ka mid kuwaan xusuusto nin caddaan ah oo qaramada midoobay oo xamar jooga ayaa hay-ad dhirtiga daaqaabuu la shaqeeya walaalkiisoo soomaaliya saaxiibkiisoo soomaaliya ayaa inankaa ay wada shaqeeyaan baa kii aroosanaya dabeedna wuxuu odhanayaa arooskay gee arooskii buu geenayaa wuxuu ka fikirayaa markaa dadkani dhaqankoodii iyo hiddahoodii ayay la iman doonaan dabeedna arooska curumaa lagu qabanaya mise waxay haystaan dadku suud markaasuu odhanayaa iyo time miidhan gabdhihiina goonno iyo baystaan markaasuu odhanayaa mindhaha malaha arooskaa soo gashan doona dharkii hiddaha iyo dhaqanka mise isna waa suudkii iyo bahalkii dheeraa taajkii dabeetana wuxuu soodhanayaa mala odayaashaa ka duwanaanaya mise odayaashii gabdhihiina waa sidii oo kale dabeedna wuxuu odhanayaa daba cuntadooday ku soo bandhigi doonaan mise keeg baa afka laysu gelinaya markaasuu la yaabayaa sida dhaqanka loo baabiiyey iyo sida reer galbeedku ay u camimeen madowsadaan iyo ilaa canada sheekadaasaan ku dhiirigelinayay dhaqanka lagu soo noqo baa ka mida kuwaana ilaawine barnaamijkii sheeko gaabane radio muqdisho barisamaadkii aad iyo aad ay u mahadsantay asmaan waxaad qortay buugga kale la yidhaahdo hodantinimada afkeenna oo ay kan aad mooday inay isku wax ka hadlayaan oo isku macno ay yihiin xilliyada oo kale afafka kale ingiliishka kale ama afka ingiriisiga waa today yesterday iyo tomorrow wixii intaa ka dambeeya de waa tilmaamo kale ayuu noqonayaa afkeenna soomaaliga xilliyada ma kaga hadashay sidee ayaase u dhigta haddii aad ka hadashay maxamed waa maasanta afka xilliyada waan kaga hadlay maalmuhu ilaa 5 nooc bay toddobaad soomaalidu magacowdaa oo hakisbira iyo kooley labaale saddexle xasan sheekh muumin miduu soo saaray mid anigu aan soo jeediyey toddobada beri aad sheegaysid waa 4 soo socda iyo 2 tegey shalay iyo doraad soomaali mooya 4 doraad ma jiro berri saa dambe saakuun sidataal toddobadii maalmo iyo maanta tala jooga 2 tegey 4 soo socda iyo taagan afli ma jiro waxaan kaga hadalnay magacyada xidigaha goodadka dayaxa toddobaadka magaca afada iyo horida imika jidka oo kale mise magac baynu inagu leenahay ama naag afo oori xilo bilcan haweeney jid wado dhabo toore digdigo marin toobiye tub helin malko mala koobi karo guriga imise magac baynu leenahay waa guri waa aqal waa hoy waa min waa minan waa baro iyaguna waa home iyo house keliya ama bayt keliya waa weeye xilligana waa saas oo kale waa eeg waa aag waa kow waa shin waa had waa jeer waa beri waa amin yani ilaa 18 magac baynu xilligana u leenahay afka ugu hodansan weeye adduunka waa afafka nebi aadan ku hadlay ee afafka oo dhan dhalay rumaysta afnaabna ka eega markhaatiyo badan u dheeraynaa cismaan waxaa jira afka carabiga dad badan waxay aaminsan yihiin inuu yahay afka adduunka ugu hodansan waa afkii uu ku soo degay qur-aankeena kariimka ah dad aad u fara badan baa ku hadla kutub aad u fara badan baa laga qoray adiguna waxaad aaminsan tahay in afkan soomaaliga uu yahay afka adduunka ugu hodansan marka arrintaas dadka su'aalaha ka qaba bismillah afka ugu hodansan waa afkeena dalka ugu hodansan waa dalkeena labadaba waan hubaa shakina ma leh waxaana laynagu bahdilay qur-aankaaba sheegay idaacad BBC da telefon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون waxay rabaan afkooda inay ku buriyaan iftiinka ilaahayna uu dhammaystiraya nabiga unbaa carab ahaahe dee abujahalba carab u haya abulahab iyo
maantana carabta kiristanka ee lubnaan joogta ama masar 30 milyan kama yara marka aan kala garanno carabnimada iyo muslimnimada carabaduna carabada qadiimka ahina waa af soomaaligii hore wallahi quraanka oo dhan ugu yahay macallin af soomaali ka gartaa waa dabaali doontaan kala bal raana ala qulubihim waa raanti waa qalbigooda soo garabays hadda tamo wada shay kale telefoonada meelaha idinku qorayaa waa daraasad gaare maanta ma qayilina waxaan rumayn iga rumaysta af soomaali carabida qadiimka oo dhami waa soomaali xitaa garaad bay hor jireen boqorkooda berigii nebi maxamed noolaa calayhi salaatu wasalaam marka carabnimo laynaga rabee muslimnimo laynaga rabaaye innagaa dhash biniaadanka dhallae waa walaalaheen hadday tageenna way soo noqon doonaane soo dhaweeyo aan ku tahin waa gaar goosanina aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay aan isdhegaysano fadlan cismaan dhinaca kale adduunku wuu hormarayaa maalinba waxaa imaanaya wax cusub teknolojiyadan eray bixinno badan oo waxaa jira aan weli la samaynin oo soomaaliga ah tusaale ahaan tv-ga oo kale radioga mobilka saacadda intuba waa afaf kale marka ma jiraan erayo soomaali ah oo loo bixiyey oo cilmi baaristaada ka mid ah oo aad arrimahaas uga hadlaysa ma jiraan maxamed waa maasantay way badan yihiin buug dhan baaban u bixiyey way soo socotaa haddii ahaydmo waxaad ogaataan wax kasta oo jira magac baa loo samayn karaa ama qaabka uu eg yahay ama shaqada u qabto saacaddu waa goor sheegto telefoonku waa codfogays telefon tv-gu waa fogaan arag television saacaddu waa goor sheegto ashtarigu waa dambasqaad mobilkuna waa koorte koortu meesha geer ka hayso weliba boodaan maaha waa calan oo koorteerada caleenka ahayd magacbixintaas waa badan tahayoo xitaa lasbinka waxaan u bixinay nacguur waxaa la dhahaa lagu guraya waxalaalo waxaa doontay af soomaalida lagu sheegi karaa shalay buu ku yidhi axmed gacmayre waa maxay misir koolka berigii maxaad u bixisa waa isaseegdee way seegtee lugdee marka brogaraamyada ku jiraan layidhi bal waa hagaaga jaamacadda leystaaoda saxaabada anuu xiisad ka bixinaya arday ugu yidhi macallin whatsappka iyo ma ka hadashay magac ma u bixisay haa baan idhi waa beeldeeq ummaddoo dhan baad eegsanaysaa mid taajira iyo mid faqiira iyo shaqadu qabtay waynu ugu magacdaraynaa beeldeeq baynu nidhi marka buug dhan baanu ka saari doonaa bixinta haddii lahaydmo laakiin waxay ku fiican tahay in laysu keeno rag kala duduwanoo midba sii qoray 10 sano oo kale ingiriisku waa decade anagu tan baan nidhi waayo 10 20 30 40 50 70 tan ay ku dhammaadaan baa lagu magacdarayo waa 10 sannadood waxaan nidhi ereyga milla ayay ka timi milyan milla waa kun millana waa milyoone waa kun batay marka kun bad baan anu milyanka bilyankana waxaanu nidhi kunkarood buu aadayaa trilyankana waxaanu nidhi kunbarood buu leeyahay waxaana soomaalida lagu heli karin ma jirtee madaxa sare u taaga aad baa u mahadsan tahay cismaan ma aha nin laga bogan karo oo 30 daqiiqo iyo wax ku dhow aynu uga dhergi karno maaha cilmiga ku duugan ilaahay ha inoo xifdiyo cismaan waxaan kaloo ku weydiin lahaa soomaalidu waa dad lagu sheego inay hodan ku yihiin dhinaca suugaanta marka suugaanta qiimaha ay u leedahay gaar ahaan gabayga oo lagu sheego boqorka suugaanta soomaaliyeed ayaan doonaynaa soomaalidu siday u xushmayn jirtay iyo siday u jecel yihiin inaad bal wax inooga iftiimisid bismillahi maxamed aad baa umahadsan tahay horta waa xikmadana qaar baa awoogay baan ka dhaxlayo waa hidda iyo cadha ay u kaliftay war midna maaha ilaahay baa bixiya acuudu billahi min ashaytaani rajiim suurat albaqara ilaahay wuxuu yidhi yu'ti llaahu alxikmata man yashaau waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira ilaahay baa murtida kuu doono siiya murti kii la siiyana khayr badan baa la siiyey hablaha
ayaa iyana ilaahay khayr badan geliyey inkastoo gaaladu ka dhaadheysay annagaa ilaahay idiin dhaanna waa been idiinma dhaamaan عسى ولا تكرهوا النساء عسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا سورة النساء حتى لا يسننها وينك عدات كان يستوى على غيابها شيء خير بدن لقليلات كان يستان عدنا عدان مركا وما صاير خير بدن قليل سومالي ولا حكمة بينها عرب ذو شعر يا قصيدة وقبل يهاس من هذا كلامي إنه هو تطبيق تمنع قوي جيرار مانسو مصفو قولو تعبر شرب دانتو برامبر مصفو مايو وتطبيق تمنع وهاستك لي إلى سديت النوع يسديت البضوط أو سكالة بحيصو مركب هو سوقات العدل يقوم بقارسو ويروها فهم قراد اللي يرى المانتو والباهمتو مانتو ماشي إنه قلتشتو أيا قبل يقولوا قلتشري وعلى قري للي بروفيسور عرالي ورير قيساه يا ابوك عانك محمد عاشي دمع قاريه الى يوم حريسته ميزانك مانصدا نيك دوري انو قبل قبرتو ama suugaantana shaqalada la tiriyaayo shaqalada ay soo koobeen labaas min hal buug bay ka horeen waa weeye haday tahay ninku markuu doonayo bulshadu inay wax isu sheegto waa lagu tirin jiray gabayga isagaa lagu sirin jiray dadka isagaa lagu urun jiray colaadoo diradiraha isagaa lagu nabadayn jiray oo lagu heshiin jiray isagaa geela iyo faraska iyo gabadha iyo wixii ammaanle lagu ammaani jiray isagaa caashiqa iyo kalgacalka lagu sheegi jiray isagaa dadka lagu waanin jiray isagaa u ahaa maanta halka idaacadaha iyo wargeysyada iyo ay noogu jiraan telefishinadu isagaa kuhaan iyo habaar iyo yu-aasho lagu samayn jiray isagaa cabasho iyo catow iyo calaha lagu tirin jiray isaga ayaa inoo ahaa wax kasta waana hadalkii oo la soo koobay oo xigmadaysan oo qurux badan marka waxaad arkaysaa wadaad soomaaliyeed oo laascaanood baanu ka samaynay akademiyada dhaqanka cakaana wadaadadii aniga adeerkay madaxweynaha waxay ka sameeyeen markasu shacir alcarabi xarunta gabayga carbeed wada carabnada way noo tirsaday mise istaabnimo war soomaaliya isiimaansada xarunta idinkaa dhale waa carruurtiinniye ilaah baa ku dhaartay idinkaa biniaadamka o dhan dhale qofkii muslima ilaahay jecel yahay qalbigaagu ilaahay eegaya markaa raalliga ahaadoo wax walba waynu haysanaaye aynu ducaysano intaynu is-iimaansano sidaa xamar ba u hagaagtay bay noogu hagaagaysaay dhallinyaradu ha shaqayso oo yaan lagu shaqaysan cismaan suugaan baan soo hadal qaalnay suugaantana heesuhu waa ka mid dabcan heesaha soomaaliga ee xilligan xigmadda ay xambaarsan yihiin markaaad barbar dhigtid heesihii hore iyada maxaad ka odhan lahaa qaar baa iyada dambe qaada وبالكم يعني قبل بقين بدي ميكروفون كويس بقى جري يا ولي حبيبي أمريكا سبب في عم باتنا فلان بدنا ويروت بده ماشي واحد كم غير روايتي اللي نيجي ترى سنكو بيا حسن كده يو راجل لما تكعاي صور رون ترى شيكوي كلاهي تسكو على قصة ترى هاس بأمر من نور أمريكا قاعدة يا منا تكشكا قاعدة يا منا جبوتي أنا هاس بأمر ترى مرود إذا تعالى بوكنا يلو رول سيسدا يا لاترود هاسا وقال فنان غير كيسا ما أقف كمان كل انتين على مانتد انتو نولي يا وانا قفتد هسه وقال مصطفى عمر حتى كل فتاة يوتيوب كان عليها أصيليا مصطفى عمر وكل صباح يسا إذا هو يدي إنا يسفهم منا إذا الواينا عندنا هو يدي يوشكين تفي marka taasaan ka hoose caruurteeda shan iyo tobana idin hooyadeeda inay isfahamina waxa tahay ilwaadu ilaahay isiiyo aqoonta iyo garashada akhlaaqda iyo quruxda iyo iimaanka sugan iyo samirka iyo adkaysiga amaanta ama koobo abaalka ama gudi karo inan kula masaalana kuma anaga dunyada ma jirto ma oran adaaligu ma jirto ma oran inan kula masaale ee waxaan kuma arag anu ma aragte waa runtii ma aragte raalliyaa siiliya mabu aaminaa tahay baydka dhexana waxa weeye burburkii oo dhan iyadaa shaqaynaysa wax walba ururaysay imtixaanadii dhacay adligeenna saanyaday ubadkiiyo naftaydaba awey baad u noqoto ehelkiiyo asxaabtiiyo ummadda agsoono ammaanta ama koobo abaalka ama gudi karo inan kula masaalana kumaan anaga duunyada raalliyaa siiliya maru aaminaa tahay idin hooyadeeday ina yuusuf aamina waa duco adduunyada balaadhiyo istareex ku noolow aakhirana fardowsiyo nebigii agtiisii
allaha ku geeyo anfac iyo shafaacana ummad badan u qaado markaa hablahana waxaan odhanayaa laa ninkaan idiin heesin oo qirin intaad nooshihiin ku xidha shuruud kaga dhiga haddii lahaydba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan cusmaan cabdinuur xaashi sidoo kale idinkuna aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina wanaagsan iyo sidaa dareenka noo siiseen casharkeennii halkaas ayuu ku eg yahay aad baa u mahadsantihiin